بسم الله السلام عليكم. kusoo dhawaada koorso cusub oon magaceedu yahay HTML. waxaa soo diyaariyay soona jeedinayo anigoo ah Maxamed Ibrahim. HTML Hypertext Markup Language. koorsadan waxay maaragtay ku saabsan tahay sida loo sameeyo loona sii horumariyo website-yada, web design, web development. Today's lesson cashirka maanta ayaan ugu horeeya aan rabin aan ka qaadano waxa waaye hordhac. hordhaca insha Allah taala wuxuu ku saabsanaan doonaa qodobadan. waxaan hubaa qodob kasto in maaragtay aad wax ka faa'iidi doontid si kooban oo maaragtay xog ku urursan tahay oo macquul ah ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah. maadaama ay diyaarsan yihiin waxaan rabaa inaan marka aan guideline-keygan ku socdo. qodobka ugu horeeya wuxuu yahay maxaad u baahan tahay si aad u barato koorsadaan. waa maxay HTML, CSS, www, URL, browser, website and web page, view, page source. ayuu intaan cashirkeenu maanta ku saabsan yahay. intaan maaragtay iyo waxa ay yihiin ku sii ogaan doonaa. aan ku horeyno qodobka hore ee ah maxaad u baahan tahay si aad u barato koorsadaan. okay, inaad wax ka taqaan asaasiyaadka computerka waa muhiim. computer basics. okay, waa maaragtay qof aan computer meel laga maray iyo wuxuu yahay aan aqoonin inuu marka sidoo computerada ay iskula xiriiraan in software programming waa xogaa isma lahaanayso. laakiin si uu qofka computer basics wax uga barto maadada A+ka iyadana koorso kalento aan bilaabo qabyo ah laakiin aan rabo inaan dhammaystiro insha Allah waqtiga hadda sida ugu suuragalsan labadoodan isku dhinac wadi doonaa ayaa maadadaas ka saacidayso qofkii rabo A+ka. marka asaasiyad computer qofkii wax ka yaqaan waxa kamid ah marka tusaale ahaan sida loo sameeyo foldersyada iyo faylasha iyo sida loo raadiyo ama loo tago meesha ay kaga jiraan computerka. dabcan hadda marka cashirka xigay aan casharadeen aan ku bilaabi doono waa idin tusin doonaa dabcan sida folderka loo sameeyo, faylka loo abuurayo, loo dhaxgelinayo, meesha ku jiro dabcan practical loo sameyn doono hadda la idmo. marka waxba ku sii niyadjabinin. sidoo kale waxaad u baahan tahay barnaamij wax lagu qoro editors. tusaale ahaan Windows-yada waxay wataan oo ku jira computerka si dabiici ah notepad, balse waxa ka sii fiican oo aad internetka laga soo degsan karaa notepad++, waana lacag la'aan. dabcan ayadana waa sameyn doonaa insha Allah. wuu ii degsan yahay laakiin waa idin tusin doonaa insha Allah cashirka xigo. what's HTML marka? maadadan koorsadan HTML yiraahdo sideedaba maxay tahay, maxaynu qoraalkan u taagan yahay. HTML is the standard markup language for creating web pages. waxay u taagan tahay waa standard markup language. yani markup language waxa la yiraahdaa luqadda wax lagu dhiso. waa standardka luqadda wax lagu dhiso. standard waxa waaye wax maaragtay lagu heshiis isku raacay oo written document ah, qoran, la raacayo, repeatable ah, soo noqonayo, habkaas lagu soconayo. marka waa hab standard ah luqad wax lagu dhiso kasi ah ujeedka loogu talagalana uu yahay for creating in lagu abuuro lagu sameeyo web pages. web page-yada web page waxa uu yahay waan qaadan doonaa isagana. HTML stands for waxay u taagan tahay hypertext. H iyo T waa hypertext, M ta markup, L ta language. waa xuruftii la soo gaabay abbreviation. marka so short for qoraalkan u taagan tahay marka hypertext markup language. language waa luqad. dabcan luqada waxa lagu qoro computerka luqadaheena kulkuma hadlahaba ayaga isku fahmaan. marka waa luqad wax lagu dhiso. meesha maaragtay website ma jiro ilaa HTML ay qayb ka tahay laga soo bilaabo
ama HTML kaligiisa ama HTML iyo another luqado kale la isku daray oo ka koobnaana. So waa meesha asaaska page-ka structure-kiisa laga qaabeeyo lagu bilaabo. So waa kana HTML describes the structure of a web page. Waxay qeexdaa qaab dhismeedka web page-ka. HTML consists of a series of elements. Waxay ka kooban tahay elementyo isdaba yaalo oo badan. Marka elements wuxuu yahayna waan qaadan doonaa isagana casharka xigaan ku qaadan doonaa hadduu alla idmo. HTML elementyada HTML-ka walxaha HTML ka kooban yahay tells the browser waxay browserka u sheegaan how to display the contents si ay usoo muujiyaan habkay u muujinayaan contentiga waxa uu ka kooban yahay page-ka ama website-ka ama web page-ka waxa uu ka kooban yahay habka usoo browserka usoo bandhigi lahaa waxa shaqada marka qabto waxa u sheego waa HTML elementiga waay. So browserna waxa uu yahayna casharkan haddaan ku jirno ku qaadan doonaa asigana wuxuu noogu jiraa qodobadii oo maaragtay today's lesson. HTML ninka alifay ama soo hal abuuray ama sameeyey waa ninkan magaciisa la yiraahdo Tim Berners-Lee oo dhashay 8 June 1955 kuna dhashay London, England, UK. waana ninka curiyay hal abuuray www World Wide Web created the first website. waa ninka sameeyey website-yada maanta malaayiinta maaragtay ninka sameeyay ama billions aan dhahnay billions website-yada jira caalamka ninka kii ugu horeeyay sameeyay waa iyo qaacidooyinka lagu sameeyo HTML-ka ninka alifay ninka sameeyay waa. Okay, waan ka soo gudubnay marka labada qodob kii kore iyo HTML hadda CSS haddana ka hadlaynaa. Okay, CSS waa maxay? waxay u taagan tahay cascading style sheets. qoraalada lagu qurxiyaa, farta lagu habeeyaa, size-ka iyo wixii la mid ah. waxaa loo adeegsadaa qurxinta iyo qaabeynta iyo sidoo kale midab u yeelidda web page-yada. waxaana lala isticmaalaa HTML waana koorsada ama maadada inoogu xigta maadadan. waa koorso kale inta si gooni tan kasii baxsan laakiin intaan tan ku guda jirno waan isticmaali doonaa. balse inta aan ku guda jirno HTML wax ayaan ka ogaan doonaa insha Allah. Okay, aan soo gudubno www waxa ay tahay waxay u taagan tahay. waxa laga yaabaa macluumaad badan waxaad maqli jirtay inuu yahay laakiin si maaragtay kooban oo academically ah maanta u fahamtaan rabaa. www okay short for waxay u taagan tahay laga soo gaabiyay World Wide Web. waxaa kaloo la yiraahdaa www waxaa kaloo la yiraahdaa W3. sidoo kale waxaa la dhahaa webna waa la dhahaa. is a graphical interface. waa wajhad graphical ah يعني soo gudbinaysa muuqaalo, qoraal, sawir iyo wixii la mid ah. graphical waxaad ka dhex arkaysid waa interface marka wajhad for the internet loogu talagalay internetka that was first introduced to the public on August 6, 1991. marka ugu horeysay ee bulshada loo soo bandhigay waxay ahayd 6 Agoosto 1991. website-ka ugu horeeyay xilligaas waqtigaas oo ahaa waxaana sameeyay waa ninka hadda muuqaalkiisan soo arkayna Berners-Lee. Few days later on August 23, 1991 it was available to everyone. qof walba waa heli kara markaa يعني waa 6 isla bishii isla sanadkii waay taariikhda 6 ahayd markii koow la soo bandhigay laakiin si official ah oo qof walbaba waa maaragtay ku heli karo waxay ahayd 23 isla bishaas 17 casho ka bacdi. graphical browser displays text kana graphical interface kan browsers. Okay, browserada laba loo kala qaadaa graphical browsers iyo text only browsers. so marka graphical browsers
display waxay muujiyaan ay maaragtay shaashada keenaan qoraal sawir iyo web applicationo ay ka mid yihiin video iyo audio files yani maqal iyo muuqaal as compared with text only browsers marka la barbar dhigo browserada nooca ah ee kuwa qoraalka kaliya soo bandhigaan laakiin kan hadda wuxuu ahaa website-ka ugu horeeyo waa kaas graphical interface lahaa so tip marka the www is different from the internet badanaa markii website-yadan la galay browserada waxaan soo bixin dadka internet kaasi u maleynayaan laakiin way ka duwan tahay internetka although most people today think that the www is the internet dadka in badan waxaa jirta dad kamid ah ay u haystaan internetkaba inuu yahay pagekan iyo browseradan iyo www-dan la galay inay yihiin but the internet is what connects your computer with other computers internet waxaa la yiraahdaa wax computerkaaga la xiriiriya ama ku xiriiriya computer kaleeto that's the internet waana waxaa loo noqonaa kaas wuxuu ahaa 6 sano qonta soo jira 1960 meeyadii ayay ahayd waqti hore so internetku ka horeeyay www-gan ama web browserada internetka horeeyay so the www is what you are viewing while looking at your browser www waa waxa aad maaragtay aad fiirinaysid oo arkaysid oo ku hortaada yaalo markaad browserka aad isticmaalaysid aad maaragtay fiirinaysid browser wuxuu yahay arki doona insha Allah waa wax ku saamaxaya inaad www aad maaragtay meeshaad ku qortid waxaad ku booqatid sida website-ka aan xogtan ka soo qaado la yiraahdo computerhub.com web aad u fiican oo qof walba anfacaya waa heer kasto yahay haddaba waa maxay barnaamijka ku ogolaanaya inaad gasho ama aad adeegsato www waa okay what software allows you to access the www haddaba jawaabta oo kooban waa barnaamijka browserka la yiraahdo haddaba browserow maxaad tahay waa kan waa inoo qodobkeena kaleento waa hordhacayna ku saabsan casharkeena maanta midaba gooni oo yaal markasta markaa marayo midab gooniyahan siiya si aan u ogaado midkaa markaas taaganahay alternatively referred to as a web browser or internet browser waxaa kaloo la yiraahdaa oo maaragtay lagu tixraacaa inuu sida web browser waa la dhahaa ama internet browser a browser is a software program waa barnaamij software to present and explore content on the web on the world wide web waa barnaamij lagu soo bandhigo oo lagu sahmiyo waxa uu ka kooban yahay www يعني www xogta ku jirto waxa website-ka ku jiro barnaamijka ku saamaxayo inaad waxa lagu sahmiyo lagu dahfuro lagu muujiyo ayaa browser la yiraahdaa browser la'aan ma jiri karto meel aad booqanaysid these pieces of content including pictures videos and web pages are connected using hyperlinks and classified with URI uniform resource identifiers waxyaabaha contentiga waxaa ka mid ah sawiro muuqaalo web pages kulligood marka waxaa la isku xiriiraa iyagoo isticmaal waxa la yiraahdo hyperlinks waa linksyo page ku geena meel ku gaarsiinayso iyagoo isticmaal waxa la yiraahdo URI there have been many different web browsers that have come and gone over the years waxaa jiray web browser fara badan oo waqti hore yimaadeen maaragtay sanadahana la tageen oo baxeen ileen wax walba maaragtay waqtiga hago waqti kasta waxba jiro the first named world wide web kii ugu horeeyay waxa la dhihi jiray world wide web la browserka ugu horeeyay later changed to Nexus loo bedelay markii dambe magaciisa was invented by Tim Berners-Lee in 1990 ninkaas alifay browserka ugu horeeyay however the first graphical browser si kasto graphical browserka ugu horeeyay and widely used browser uguna isticmaalka badnaa balaarnaa that helped bring popularity to the internet was NCSA Mosaic ayuu ahaa
kan dadka ugu saameynta badnaa ugu fahmida badnaa lan oo noqday kanuu ahaa marka uguna horeeyay Mosaic. waqtiga xaadirka aan joogno marka kuwa ugu caansan ama socdo ee jira browsero list of current internet browsers Google Chrome ko kaleento Chrome Google ka iskale oo aan wada naqaano aan daily u isticmaalno waxaa kaloo jira Microsoft Edge waxaa kaloo jiro Microsoft Internet Explorer oo caan ahaa muddo la sii isticmaalay Mozilla Firefox Opera Apple Safari iyo Amazon Silk. Okay, URL qodobka xiga waa sigana oo content oo maanta casharkeena ku saabsan also known as an internet address or a web address. URL waxaa loo yaqaanaa internet address ama web address waa la yiraahdaa waa meesha maaragtay aad wax ku qoraysid waxa aad ku qoraysid meesha browserka waxaas aad ku qoraysid waay URL la yiraahdaa sidaad meeshaan kala fiir computerhub.com so marka intaana waxay yihiin URL kiisa. So which is the URL for the computer hub site? Okay, sigo overview ah waa kana web dhameystiran website iyo web page isku darsan waay. So qaab muuqaalkan uu leeyahay HTTPS protocolki waay markuu S ka raacsaneen waa marka uusan security ahayn lahayn S marka raacsan S for security u taagan tahay marka security kan leh waa arki doonaa sigana. So waa kan intaan ayaa waxaa la isku yiraahdaa URL waxa aad soo koobiyeenaysid marka rabto inaad link qof aad la wadaagto ama u dirtid URL ka waxa aad soo qaadaysid. Okay, website and web page waxa ay kala yihiin hadana aan qaadanaynaa. Website is a site waxa loo yaqaanaa site or website waa la dhahaa is central location of web pages waa xarun dhexe oo web page-yada ay ku urursan yihiin that are related and accessed by visiting the home page of the website using a browser. Yani waa marka page home page ka la booqanayo browser iyadoo la isticmaalayo meesha ko laga soo dhacay wajhada hore ee website-ka laga galo taas ayaa website-ka ah. For example, the computer hub website address URL uniform resource locator is wuxuu yahay marka kii hadda aan arkayno marka waa kana https marka laba dhibcood /forward oo laba ah /www.computerhub.com. so URL kiisa waa kaas website-ka marka kana site-ka ah. From our home page you could get access to any of the web pages contained our website. Web page kasta oo ka kooban website-kaas waxa uga sii gudbi kartaa marka aad soo gashid computerhub.com marka gashid ayaad pageska kale ku sii jirsi aadi kareysaa. So kan ako ka soo dhacaysid aad soo galaysaa waxa la yiraahdaa website kuwa aad ka sii galaysid ee gudihiisa ku jirana waxa la yiraahdaa web page. Tusaale yar oo macmal hadii aad ii sheeg waa book iyo pageska oo ka kooban yahay. Bookga waa website-ki wixii oo dhan oo isku wada xiran waay bogaga oo ka kooban yahay waa web pageska waay. Okay, tusaalaha aan samaysto waa kana. What's the difference between a website and a web page? Website waa wixii hadda aan sheegay reference to a central location xarun dhexe ayaa lagu qeexaa that contains more than one web page taas oo ka kooban in ka badan hal web page or a series of web pages. For example, Computer Hub is considered a website which contains thousands of different web pages. Kumanaan kun oo different web pages oo kala duwan oo ka kooban yahay. Waa sida farqiga u dhexeeya book iyo bogaga pageska bookga oo ka kooban yahay kale. Website like a book, web page like a book pages. oo kala imaanayaan. Marka waa muhiim in farqigaas u dhexeeyo website iyo web page ayagana baratid ama fahamsan tahay. Waxaan filayaa in meeshaas qodob muhiim ah nooga soo baxay. Marka hadda waxaan taaganahay view page source kii ugu dambeeyay waa marka kan. Okay. Okay, open your web browser
browserkaaga furaysaa. The process for viewing source code on a Chrome, Firefox, Microsoft Edge and Internet Explorer is the same. Marka waa browseryada kala duwanaa aan soo sheegaynay waa intaan marka habka loo fiirinayo ee web source-ga waan isla ogaan doonaa. Web source-na muxuu yahay waan arkaynaa. Haddaan tusaale ahaan any web page any website aan booqan karnaa. Kan hadda aan joogo ama kuwayna Soomaalida xataa aan tagna Jowhar oo kale tusaale ahaan akhbaaraadka iyo wixii lamid ah laga fiirsado. Okay, internetka ka go'asan filayo. Okay, waxaan ka fogaa meesha uu yaalo wireless access pointiga ka fogaa, marka saasaa keenayso inuu marmar ka go'o laakiin ku xiriiriyay. So okay, page-kan hadda joognaa. Tusaale ahaan okay, source fiiri any page meel kamid meel banaan istaagaysaa, right click aan leedahay, waxaad tagaysaa waa kana midka ugu hooseeya midka ka koreeya view page source aan lahaa. waxaan arki doonaa waxyaabahan waa coding waa marka HTML-ki iyo CSS-t maaragtay waxyaabihii lagu soo sameeyay oo page-ka waxaan macaamiisha ama dadka ama maaragtay kuwii soo diyaariyana hawshan qabteen. Marka wixii la soo diyaariyay waay. Marka waa waxa anaga hadda aan rabno inaan barano sida wax loo suubiyo, sida wax u samaysan yihiin waay. waa naqshadii, waa structure-kii waay, qaab dhismeedkii waay. So page kasta waad tagaysaa, waad ogaanaysaa meeshaas ka fiirinaysaa. waxa waay haddaan marka la idinku celiyo barxad kasta oo kamid ah aad tagaysaa, mouse-ka geenaysaa, falaarta oo mouse-ka right click aad leedahay, view page source aad leedahay. وكذا انت ارواح دقيسة او meesha rabto hoos u sii degaysaa oo far badan yihiin. So meesha waxaan ka ogaanaysaa marka how job is done, sida shaqada u qabsoontay meeshaan ka ogaanaysaa. laakiin page-kan waxa waaye marka shaqada qabsoonto wixii qabsooma natiijada maxsuulka leh oo cunno la creamiis la soo saaro waa tan. laakiin sida wax loo karnaa wax loo soo diyaarinayo meeshaas aad ka helaysaa. waxaa kaloo jiro oo iyadana muhiim ah fursadaan uga faa'iideysanaa website-yada haddaad marka HTTPS STL security website-yada security-ga leh, ammaankooda leh, magacaaga, macluumaadkaaga ama waxa ka iibsan kartid, macluumaadkaaga gelin kartid ama aad booqan kartid ee aan maaragtay dhibaato iyo virus iyo waxaan ka soo raacin lagu kalsoon yahay. waxa way qufulkaas aad ka fiirinaysaa. view site information ku soo baxs marka saas u kor saartid laba qaab oo ku arki kartaa. kaliya waa siinaysaa hal kaliya daasi sidoo ku soo baxa ama right kaliya dhahay labadaba ka rabtid. so waxa xataa si fiirin karaysaa certificate-ka shahaadada uu leeyahay valid waa waliba ka soo sii sheeg meeshan adoon gudaha u sii gelino ku shaqaade valid tahay ma ka dhacsano aan ku sii dhufto wax la arki karo valid from 15/12/2020 hadda dhow la cusboonaysiiyay week ka hor sanadkii dhamaaday bishii December 15/12/2020 ilaa intuu validkii waxa waa 15 bisha saddexaad 2021 ayuu valid ahaana. so marka waxaan waa booqan kartaa website kastaba waa fiiri kartaa, wax dhiba kuma fadhiyo, wax dhiba ma lahan. so waa kaasa marka insha Allah faa'iido wacan waxbarashada iyo aqoonta maaragtay waa wax u baahan mar kastaba barasho iyo raadin isku taxalluujin. marka maanta cashirka xogaa waa dheeraaday sababta kaliya wax kale ma ahana macluumaad guud iyo dulmarid ayuu ku saabsanaa. laakiin waxa ka dambeeyo 5 ilaa 10 daqiiqo inuu cashirkiiba u dhaxeeyaan rajayn doona. Assalaamu calaykum.